wafdi ka socda midowga Yurub hay'adda Save the Children iyo hay'adda AET oo ay wehelinayaan saraakiisha wasaaradda waxbarashada ee heer gobol iyo heer qaran ayaa kormeer ku tagay mashaariicda ay midowga Yurub maalgeliyo ee waxbarashada guud ahaan ee gobolka Saaxil gaar ahaan mashruuca ballaaran ee iskoodka ee lagu tababaro macallimiinta oo ay ka rudaynayeen waxaanay kormeeradaasi ku tageen dugsiga sare ee Cabdisalaan ee magaalada Berbera iyo dugsiga sare ee Soos ee magaalada Sheekh oo ay ka socoto tababaro macallimiin haween ah lagu siinayo barnaamijka oo qayb ka ah barnaamijka iskoodka Maxamed Sabuul oo ah sarkaal ka socday midowga Yurub iyo injineer Ahmed Abakar oo isna sarkaalka u sareeya iskoodka ee Save the Children u qaabilsan ayaa labadooduba ka hadlay muhiimadda mashaariicdani ay leeyihiin waxaana hadalladoodii ka mid ahaa You have visitors with you and we are very happy. Now we want to speak with one boy. kormeerina ku sameeyaan mashaariicdii laga hirgeliyay waddanka Soomaaliland dhowrkii sano u dambeeyay midowga Yurub maalgeliyay gaar ahaan qaybta waxbarashada markaas halka safarkii markaan soo bilownay waxaan soo marnay iskuulkii Cabdisalaan ee dugsiga sare Berbera halkaasoo kormeer lagu soo sameeyay markaa qaabka macallimiinta iyo waxbarista iyo dhismayaashii ay midowga Yurub maalgeliyeen waxaan kaloo soo marnay markaa dugsiyada iskuulka Sheekh haday tahay madaxdeeda sare iyo waaxyaheedaba la yeeshay waa kormeerkii ugu horeeyay ee noociisa ay saraakiisha midowga Yurub iyo Save the Children Abdikariim Saciid Saalax telefishanka caalamiga ah ee Home Cable TV Berbera